kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idin soo gudbino waxaad inooga barateen in barnaamijka aynu ku qaada dhigno xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda dalka qodobada aad ku daawan doontaan caawa warkeena ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh oo maanta ka badbaaday isku day dil oo ay la damacsanayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya xogii ugu dambeeyay isku daygaas dil iyo sida uu u fashilmay ayaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Roble oo ku socda mid ka mid ah caasimadaha maamul goboleedyada dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo uu hoggaansamay fikirkii uu soo jeediyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Abiy Ahmed oo fadeexad dul hoggaanaya kadib markii la ogaaday codna laga duubay in uu sheegay in uu dhimanayo oo uusan xilka wareejin doonin iyo xogtii ugu dambeysay wasaaradaha qaar ee dowladda Soomaaliya oo qarashaadkii lagu shaqeyn lahaa laga goostay oo xog aan idinkaga hayno haddii ay tahay markii ugu horeyso aad na soo booqatay nagu soo bir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commenting in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso waa habeenimo ay sii baxayso arbaco khamiis ayaa soo galaysa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 2 bisha June sanadka 2021 aynu u gudagalno qaybaha hore ee barnaamijkeena casirliiqii maanta mar qura ayaa laga warhelay isku day dil oo uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo faahfaahin kala duwan ay ka soo baxayaan in ciidan ka tirsan kuwa dowladda ay doonayeen inay qaarajiyaan kolonyo gaadiid ah oo uu la socday madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe ee maanta waxaa rasaas la dhacay ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay ogaadeen warbaahinta madaxweynihii hore ee dalka ayaa la rasaaseeyay xilli uu marayay bar ay ciidamada dowladda ku leeyihiin agagaarka xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne kolonyada la socday Xasan Sheekh ayaa waxaa mar qura la hubiyay rasaas xoogan iyada oo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ilaaladii la socotay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marnaba aysan ka jawaab celin rasaasta midaasi oo baajishay in dagaalka uu noqon lahaa laba dhinac isla markaana si toos ah dhiig halkaasi ugu daadan lahaa xogii ugu dambeeyay ayaa waxay intaasi ku darayaan in rasaasta lagu furay madaxweyne Xasan Sheekh aysan wax khasaare ah ka dhalan kadib markii uu madaxweynaha amray ilaaladiisa inay isxakameeyaan isla markaana aysan ka jawaabin rasaasta lagu furay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka yimid shir nabadgelyo oo ka dhacay Elite Hotel oo ku yaala agagaarka xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis isagoona ku sii wajahnaa kulan kale oo ay lahaayeen golaha midowga musharaxiinta waxaa xusid mudan in goobta lagu rasaaseeyay madaxweyne Xasan Sheekh dhowr bilood ka hor lagu rasaaseeyay imaamka guud ee beelaha Midlood Imaam Maxamed Yuusuf midaasi oo raaligelin uu ka bixiyay ra'iisul wasaaraha welina ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku saabsan waxa dhacay iyo sida ay u dhaceen laakiin dadka qaar ayaa waxa ay tuhmayaan in qorshahan uu ahaa qorshe horey looga soo shaqeeyay oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonaysay in ay gabi ahaanba ku soo afjarto Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale laba ka tirsan ciidamada asluubta askartooda ayaa waxa warbaahinta ay u sheegeen dadka goobjooga ah in ay halkaasi ku dhaawacmeen mana jirto faahfaahin intaas si dhaafsiisan hasaatee wixii ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ra'iisul wasaaraha muddada xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ku wajahan yahay mid ka mid ah caasimadaha dowlad goboleedyada dalka oo uu markii ugu horeysay booqan doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu wadaa in maalinimada biri oo khamiis ah uu safar uga ambabaxo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle sida ay warbaahinta u sheegeen xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble iyo wafdi warkacayo ayaa sida qorshe uu yahay khamiista ka degi doona Jowhar xilli maanta halkaasi uu gaaray madaxweynaha Hirshabelle Cali Goodlaabe Xuseen oo halkaasi doonaya inuu ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare Roble ayaa marka uu gaaro magaalada Jowhar u kuurgali doona xaaladaha magaalada kuwoodii ugu dambeeyay sida fatahaada ammaanka iyo waliba dhibaatooyinka kale ay wajahayaan dadka ku nool caasimadda Hirshabelle
magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle ayaa lagu waramayaa inay wajahayso xaalad adag oo ammaan mid ka dhalatay fatahaada iyo weliba kala aragti duwanaan siyaasadeed oo uu hareeyay maamulka Hirshabelle in horey uu socdo maadaama ilaa iminka aan la caleemo saarin madaxweynaha beelaha degan inta badan gobolka Hiiraan aysan ku qanacsaneen nidaamka uu ku yimid xilka magaalada oo dhan ayaa go'doon ku jirta marka loo eego fatahaada iyo saameynteeda dhabaha isku xira garoonka diyaaradaha iyo magaalada ayaa go'an ka oo ku kacaya ilaa 15 kilomitir waxaana ku qasban tahay inaad doon raacdo ama laba dowmood aad u raacdo magaalada inaad gasho oo airportka dhinaceeda aad ka timaado ra'iisul wasaaraha lama oga sida uu u wajihi doono xaaladan laakiin dad badan ayaa u arka in dawladda ay ka gaabisay u gurmashada dadkan oo ah dad Soomaaliyeed oo xaq u leh in sida loo maareeyo masiibooyinka kale ee ka dhaca meelo badan oo dalka ka mid ah iyaguna ay xaq u helaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi haddii aynu eegno gudoomiyaha aqalka sare ayaa isaguna waxa uu u hoggaansamay amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha wuxuuna soo gudbiyay xubnihii isaga ku matali lahaa guddiga doorashooyinka ee dooranaya xildhibaanada ka soo galaya dhinaca Somaliland baarlamaanka cusub sida uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaaraha gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa magacaabay 6 xubnood kuwaasi oo si rasmi ah ugu gudbiyay ra'iisul wasaaraha sida ay qayb uga noqon lahaayeen guddiga doorashooyinka xubnaha guddiyada doorashooyinka kuraasta Somaliland ee uu soo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ayaa imaanaya kadib heshiiska siban ee 27 bishii aynu ka soo gudubnay ay gaareen hoggaanka Soomaalida waxaana ay kala yihiin 6 qofood ee uu soo gudbiyay Cabdi Xaashi Cabdullaahi Cabdishakuur Daawud Maxamed Ciise Heybe Suleymaan Ciidiid Cismaan Cabdishakuur Abiib Xayr Axmed Cali Cabdullaahi iyo Jaamac Umar Cali kuwa oo uu ku kalsoon yahay isla markaana howlihiisa u qaban kara marka loo eego difaacidiisa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in maamul goboleedyada kale ay ku jiraan wada tashi isla markaana ay rajeynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan iyaguna ay u soo diraan iyadoo iskoor wanaagsan uu ka haysto xagga soo gudbinta magacyada madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo muujinaya markasta in ay ka go'an tahay in dalka doorasho ay ka dhacdo wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee magacyada soo gudbiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dul hoganaya ceeb iyo fadeexad aad u weyn kadib markii cod laga duubay isaga oo ku dhaaranaya geeri ayaan ka xigaa inaan xukunka wareejiyo ninkan oo saaxiib dhow la ahaa 4 sano ee ugu dambeysay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kulan gaar ah isagoo la leh hoggaanka sare ee xisbigiisa waxaa laga duubay cod halis ah kaasi oo kaga hadlay mustaqbalkiisa hoggaamineed ee waddanka Itoobiya iyo doorashada waxa uu ka yeelayo Abiy ayaa codka laga duubay ku sheegay in doorashada soo socota ee dhacaysa 21 bishan ay ku guuleysan doonaan isaga iyo xisbigiisa haddii kale uu dhiig daadan doono sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday inaysan jirin cid dhisi karta xukuumad ilaa 10 sano ee soo socota isaguna uu sii joogi doono xafiiska waxaan dareemaynaa xaqiiq la xiriirta welwel badan oo nooga imaanaya siyaasiyiin kooxo kala duwan iyo warbaahinta kuwaas oo doorashada u galaya si ay xukunka u qabsadaan aadna u doonaya meel kasto ay joogaan waa dhow yihiin waana fog yihiin ayuu yiri Abiy Ahmed waxa kale oo intaasi ku sii daray ma jirto cid awood u yeelan karta in dawlad ay soo dhisto 10 sano ee soo socota geeri ayaana ka xignaa inta aan xilka wareejin lahaa ayuu yiri waxaana codkaas si hoos uga duubay qaar ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa Abiy Ahmed ayaa sidoo kale wuxuu codkiisa ku muujinayaa in uu ku shuban doono doorashada ka dhacaysa Itoobiya isaga oo bogaadiyay kooxda ka shaqeynaysa arrimaha doorashada waa ay dhacaysaa kooxda aan sameynay shaqo adag ay qabteen waxaa dhici doona dhimasho iyo dhiig sida ay doonto ahaatee shaqo igama jiro inaan ku guuleysanay doorashada weliba qaab sahlan ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyay codkan halis weyn ayuu ku yahay dimuqraadiyadda dalka Itoobiya wuxuuna ceeb ku yahay biladii Nobel Peace Prize ee uu horay u helay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xagga nabadda inuu ololeynayo loo arkayay
codka oo loo maleynayo in laga soo duubay ra'iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga haya talada toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa qaatay qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka, kuwa uu aad u falanqeynaya isla markaana wax lala yaabay ku tilmaamay dhammaantood in uu ku dhiirado ra'iisul wasaaraha oo Nobel Peace Prize haysta in gabi ahaanba dimuqraadiyadda aysan sii socon. xagga iyo Somaliland haddaynu eegno tirinta codadka ayaa meel xasaasi ah maraysa doorashooyinkii ay maalmo ka hor u dareereen dadyooga reer Somaliland. ilaa iminka haddii aynu eegno xogaha hordhaca ee soo baxaya waxay kala yihiin degmada Lughaya ee gobolka Awdal ayaa waxaa laga helayaa natiijo hordhaca. xisbiga kulmiye ayaa 5 kursi ku guuleystay, wadanina waxa uu ku guuleystay 2 kursi, oo cidna 2 kursi ayuu ku guuleystay. golaha deegaanka degmada Gar Adag ee gobolka Sanaag oo ka kooban 9 xubnood waxaa loo kala helay 4 xubnood oo kulmiye uu helay, 3 wadani ayaa helay, oo cidna 2 ayay heleen. Saylac oo ka tirsan gobolka Salal xildhibaanadeedu waxay dhan yihiin 12 xubnood, waxaana loo kala helay 4 wadani, 4 kulmiye iyo 3 ucid. golaha deegaanka degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa loo kala helay kulmiye 7, wadani 2, ucid waxba maanu helin. natiijo hordhaca degmada Salaxley ee gobolka Maroodijeex kulmiye 4 cod ayay heleen, oo 4 kursi ayay heleen, ucidna 3 kursi ayay heleen, wadanina 2 kursi ayay heleen. waana doorasho hordhaca ama natiijo hordhaca oo ilaa iminka guddiga doorashooyinka ay si tartiib u soo gudbinayaan. waan arki doonaa hadduu eeba ka raali noqdo natiijada iyo halka ay ku dambayso. adiguna waan kaga mahadcelinaynaa sida barnaamijka aad ula socotay.